طفيل بن عمرو الدوسي magaalada makuu soo galay shaacir gabayaaya ayuu ahaa quraysh baa jidka u fariisatay markaas la dareen galiyo lagu yiri magaalada maka waxa ka soo baxay maxamed oo dadka sixraaye hadalkiisa ha dhageystana dhagahaaga ka furayso cutub intuu qaaday baa la qutun ayuu dhagihiisa ka furay ku fureeyay markuu dhaxda soo maray buu yiri wani nin caaqil oo shaacir oo gabayaaya ayaa tahay nin qaldi kara adigu ma tihiide ma dhagahaaga iska furtida dhagihii buu iska soo furay baa leeyahay markaa magaalada soo galay dareen baaba galay markaa wuxuu arkay nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo kaabada agteeda salaad ku tukanaya dadku siday u socdaan si ka duwan buu nabigu u socdaa dadku siday u caabudayaan ilaahay ee shirkigooda ugu sugan yihiin si ka duwan buu nabigu ilaahay u caabudaya markaas aan fadhiistay buu yiri quraanku akhrinaya ba qalbigayga ka dhacay buu yiri markaas aan is iri waniyo ma bad u tagtido ninkan aad la fadhiisatido aad wareysatid wax sax ah haduu wadana aad maqashid wax qalad ah haduu sheegana qaladkiisu adiga waxba ka qaadi maayo markaas nabiga la fadhiisay sallallahu alayhi wasallam markaas aan ku ila ma tad'u dadka maxaad ugu yeedhaa muxamadow markaa buu nabigu dadka waxaan ugu yeedhaa inay allah rabbul alamin kaligi caabudaan oo cibaadada ilaahay cid kale ay la wadaajin asnaamtan iyo qoriyahan shirkigan ay ku jiraana inay ka dhaxbaxaan dhiiga xaq darrada ku daadinayaana inay joojiyaan qaraabada kale inay xidhiidhiso miskiinka iyo dadka ducafada iyo musaafirkana in loo naxariisto taas aniga la isoo saaro umada ugu yeedhaa marka Tufayl bin Amr ad-Dawsi uu islaamay maalmo marka nabiga la joogay quraanka suurada quraanka kamid ayaa la baray laakiin dareen baa ku dhashay dareen ummadeed dadkiisii buu ka dambeeyo gaalnimo ku dhacsan oo gaalnimo ku dhimanaya oo qoryo iyo dhagax ay sameeyeen caabudaya markaa buu yaa rasuulallah nin dadkiisu aad u maqlaan baan ahay aniga tolkay ii dirbuur diintii risaalada ana ka gaarsiinay markaa buu nabigu waa hagaag ordo diinta gaarsiin inta aad iga maqashayna ordo adiguna gaarsiiyo u yar markuu in yar dhaqaaqay buu soo noqdo wuxuu yiri calaamo leegu garto inaan adiga ka socdo ilaahay ii weydiiyo waa karaamo markaa buu nabigu ilaahay weydiiyay ilaahu karaamo lagu garto sidii wajigiisa intaas iftiimaysay habeenkiina way iftiimaysay baa la yiri maalinkiina meel cad oo waxay noqotay jirka bini aadanka ka duwan markuu dhaxda maraya buu fikiro wuxuu isiri hadaad maalin ku beegantid oo de wajigaaga waa cadaan oo meesha waa ka duwan tahay waxay oranayaan baras baa ku dhacday markuu ilaahayadeeni ka tago inkaarta ilaahayadeena ku dhacday oranayaane ilaahu nuurka halka aad ii galisay jeedalkayga faraska aan la dhacayo ilaahu igu badil buu yiri jeedalkiisiba habeenkii iftiimay sida leerka u iftiimay shalay buu islaamay durba ducadiisa la aqbalaya karaamana way ka daahirtay inagu islaamnimada ku dhalanay wax karaama wali ma leena insha Allah dhaxal darigi hore la oran jiray oo hebel ba karaama laha oo keligii maxaa ka karaamada saaro adi karaamada ka qaado shaqada ummadu karaamada ku yeelanaysay ayaan maanta inagu aanan u kicin bay culimadu yiraahdeen shaqada karaamada lagu yeelanayo waa maxay waa diinta inaad u gargaarto ilaahay baa la in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum hadaad ii gargaartaan baa ilaahay leeyahay oo diintayda u gargaartaan anaguna waa ni gargaari baa ilaahay yiri ninka shalay buu islaamay maadaama nabiga uu ka socdo leeyahay tolkayban risaalada aniguna gaarsiinaya isla markiiba ducadiisi baa noqotay mustajaabu dacwaad buu noqdo ducadiisi baa la aqbalaya lana iftiinkii jeedalkiisa loogu bedelay wadankii markuu dhaximideen lagu soo yaacay aabihii buu ku yiri ilayka can iga dheerow adu gaal baataana muslim baan hay soo dhawaan islaantiisiba ku soo oroday na hay soo dhawaan adiguna waad islaan mushrikada ayaa tahay ana muslim muwahhid ayaan hay iga dheerow buu yiri ciyaalkiisina sidaas in la eg markaas ay yiraahdeen kama go'i karno nin caaqila oo reerkayaga ninkii noogu sharafta badnaa baa tahay waa ku raacayna diinta aan noola timiday waa kugu raacnay aabihii hooyadii walaashii xaaskiisa ubadkiisii baa soo raacay muddo badan buu ninkaasi qabiilkiisii uu dhex joogay dad kale inay raacaan way dhici weyday markaa buu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu jooga Makka markaa buu yaa rasuulallah labbayk دوس ريد دوس طلقي reerkii aan ka soo jeeday dirtay ilaahay amarkiisina way diideen adigayna ku rumeeyana way diideen dadkaasi waa dad cusaada way caasiyeen ilaahay rasuulkiisa habaar buu Allah baabiye
markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam qibladu nabigu u jeestay qiblada xaguu jeestay xaguu jeestay marka la ducaysanayo qiblada in la qaabilo ayaa sunnah qalbiga in la soo xaadiriyo ayaa sunnah tadarruc iyo khushuuc iyo maaragtana dhul isdhig in la muujiyo ayaa sunnah inaga maanta see u ducaysanaa waxaad arkaysaa mid ducaysanayo rabbana aatina fi dunya xasanatan kakaa albaabka ka baxayna sii eegayo الدعاء معها ربنا آتنا في الدنيا حسنة ورنهي بالباب الكان دعاء ما نقول إيش قبلة نبي جيستي أصحاب رسول الله ماذا حي قبصدين وحي لين ين إنه نبي قوم كأو هلاجا يو هباراي ولا هلاجا يو مركزنا ردوس ويهلاك سمع ويهلاك سمع ولكن نبي قعنته عركه وتاجو وحوري إله ردوس صهدي qalbigooga ilaahu adiga haye ilaahu xagga khayrka u soo jiid ilaahu xagga ilaahay rasuulka u soo qaad ma habartamin mab'uuth rahmad nabadgelyo ummadda bashariyada adduunyada ku nool oo dhan shakhsiga ugu naxariis badan buu ahaa nabi maxamed wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin rahmad buu ahaa nabigeenu alayhi salatu wasalaam dana nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waa kii xadiis aniga ilaahay lacaaniga ma dhiga lacaanku waa kee ka ummadiisa mar walba habaaralayga ma dhigine nabi rahmada oo daaciyo ummadda xagga alla ugu yeedhaya ayaa aniga ilaahay iga dhigay buu rasuulku yiri dana markaa buu nabigu isageena waxa uu ka yiri tufaylow adigana waxba ka qaldana dhageyso markaad ku noqoto ee dacwadii khayrkii aad gaarsiinaysid dadku ha ku jeclaadaan isjeclaysi adayga iska dhaaf u fudaydi u bishaare qalbiga u fur akhlaaq wanaagsan ula noqo markii hore karaamu weydiistay karaamadu umadu kuma soo hanuuntay culimadu leeyihiin dacwadu markay manhaj an-nubuwwa ay haysato ayaa ilaahay umada qalbigeeda soo jeediya oo ku noqday tolkii karaamadii hadda lama socoto laakiin waxa la soo siiyay duco qoomkiisa nabiga u soo duceeyay ducadii nabiguna waa u soo dhacdo waa loo aqbalay isagana waxa la yiri usluubtii dacwada aad u gaarsiinayso ummadda wax ka bedel baa lagu yiri markii hore adayg baad la noqotay Soomaha hadda dabacsanaan baad la noqonaysaa iyo jilaa iyo dhibrin iyo jacaylo iyo maxabo iyo khuluq wanaagsan si dhowr iyo 8 qoys oo Abu Hurayra uu kamid yahay ayaa ilaahay gacantiisa ku soo islaamiyay markaasuu soo raray gebigoogii intuu soo qaaday ayuu magaalada Madiina nabigeena ugu keenay sallallahu alayhi wasallam saasay saxaabadu xilka diinta nabiga ula qaadeen zaman walba diintu rag bay leedahay ragii diinta maanta ka shaqeyn lahaa waa innaka ragii diinta u kici lahaa waa innaka ragii risaaladan caalamka gaarsiin lahaa waa innaka sida daraadeed insha Allah dhahada inaan diinta ilaahay dadaalkeega inaan culumada iyo jamaacadada dacwada inaan ku eegna kaliya ma ahe caamadeena culumadeena dhalinyaradeenna odayadeena gabdhaheena hooyooyinkeen ummadan waxa ilaahay uu yiri واعتصموا بحبل الله جميعا دمانتين شقدا دينتنا قعمها اسكو قبسنو ونو كعنو الله درت وضا بحنا سو ديار منين ان شاء الله